wakaalad caalami ah oo gargaarka ka shaqaysa ayaa sheegtay in koox shufto ah oo bishii julaay ee waqooyi bari dalka nigeria ka afduubtay 6 ka mid ah howlwadeenadeeda gargaarka ka shaqaynaya ay dileen 4 ka mid ah howlwadeenadaasi. hay-adan oo la yidhaahdo action aid hunger ayaa jimcihii sheegtay in sheegashadan dambe ay tirada ay dileen ka dhigayso 5 qof iyada oo mid kalena ay hore u dileen bishii sebtembar. waxaanay hay-addaasi ku baaqday in si deg deg ah loo sii daayo qofka ka hadhay oo magaceeda ay ku sheegeen Grace, taasoo weli gacantooda ku jirta. war ay soo saareen sidoo kale bishii julaay ayay hay-addani ku sheegtay in ay howlwadeenada ka tirsan ama maanidhada howlwadeen ka tirsan hay-adooda 2 darawal iyo weliba 3 ka mid a wasaaradda caafimaadka ay aftuubeen kooxdaasi xilli ay gargaara bini aadamnimo gaarsiinayeen dad aada ugu baahan oo ku nool gobolka Borno ee waddanka Nigeria. maxkamad ku taala dalka Suudaan ayaa maanta 2 sano oo xariga ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir kadib markii lagu eedeeyay isdabamarin lacageed. kiiskan ayaa qayb ka ahaa dhowr dacwadood oo wajahayo al-Bashiir. dacwad oogayaasha ayaa ka hor inta uusan dhicin xukunka maanta waxa ay maxkamadda horgeeyeen cadeymo ay ka mid ahaayeen boorsooyin ay ka buuxeen lacago dhan 130 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo laga helay guriga al-Bashiir. laakiin jenaraal Cumar Xasan al-Bashiir ayaa qirtay in lacag dhan 25 milyan oo doolarka Mareykanka ah uu ka helay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, isla markaasina aysan lacagtaasi ahayn mid uu ka dhacay qaranka. militariga Suudaan ayaa afgambiyey Cumar Xasan al-Bashiir bishii Abriil ee sanadkan kadib in ka badan 30 sano oo uu talada dalkaasi hayay. ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho oo maanta lagu daahfuray manhajka dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliya, kaas oo ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay ku midaynayso kuna tayeynayso nidaamka waxbarasho ee Soomaaliya. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo diray. mar kale ayay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay Muqdisho maanta kaga dhawaaqday midaynta manhajka waxbarashada Soomaaliya. xukuumaddu waxay sheegtay in dalka lagu dhigay in ka badan 40 manhaj, balse hadda ku soo koobeen hal oo kaliya. wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan 1,040,000 oo buug oo loogu talagalay fasalka 1 ilaa fasalka 8 oo hadda gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. in 47 manhaj oo kala duwan oo midba meel ka yimid Yemen, Suudaan, Kenya, Ethiopia, Mareykanka, Ingiriiska, India, meel walba laga keenay in maanta uu midoobay oo waddanku leeyahay hal manhaj. sanadkii hore 2 munaasabad oo iskor fuusho ahayd inaan iskuulana markii u horeysay la soo wareegnay manhajkii buugaagtii manhajka fasalka 1 ilaa fasalka 4 qaybintooda iyo taabagelinteeda. waxaan rabaa inaan ku warbixiyo in arrintaas liibaan weyn laga gaaray oo manhajka uu hirgalay fasalka 1 ilaa fasalka 4. maanta meesha waxaan u taagannahay ilaa fasalka 8 oo isna soo dhammaaday muddadaas gaaban gudaheeda, oo maanta munaasabadu ay tahay 1,040,000 oo buug oo wax lagu barayo carruurta u dhaxayso fasalka 1 ilaa fasalka 8. wasiir Goodax ayaa sheegay sidoo kale inay diyaariyeen buugaagtii macallimiinta. waxa kale oo maanta la qaybinayaa oo hawsheedu bilaabatay 102,000 oo buug oo loogu talagalay macallimiinta dhigaysa manhajka inay iyaga siday wax u dhigi lahayn ay ka bartaan. waxaa fursaddan ka faa'iidaysan doono 300,000 oo arday Soomaaliyeed oo fasalka 1 ilaa fasalka 8 ee u dhaxayso waxbarashadooda. taa macnaheedu wuxuu yahay 915 iskuul ayaa buugtani ay gaari doontaa haddii eebbe idmo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlaya munaasabad lagu soo bandhigay buugaagta maanta ayaa sheegay in dowladdiisu waqti badan ay gelisay waxbarashada. wuxuu madaxweynuhu sheegay in hadday ku dadaaleen sidii waxbarasho bilaash u siin lahaayeen carruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda aan awoodin waxbarasho inay iska dhiibaan. annagoo munaasabadan u nimid daahfuurka aan ku daahfurayno buugaagta halkan taalla sambalkeeda oo gaarayso dabacadoodu gaarayo ilaa 1,040,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku raahdaa diyaarinta macallimiinta
casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu mahad celiyo dowladdan muhiimadeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini'aadanku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan waxbarnaa 65,000 oo arday ah insha allahna waa kordhinaynaa dadka degan magaalada muqdisho ayaa intooda badan carruurtooda u dirsada waxbarashada sida gaarka loo leeyahay cabdulqaadir okey VOA muqdisho